السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركلة إيو لبرو maantana waxaynu isla baraynaa sida la isugu dhufto ama la isugu qaybiyo lambarada u qoran habkii aan hore usoo baranay ee loo yaqaano scientific notation tusaale ayaynu markiiba gudagalaynaa for example haddii lagu siiyo lagu yidhaahdo 3 times 10 power 4 ah waxaad ku dhufataa waa tusaale sahlan baynu ku bilaabaynaa hadhowtana ku yara adag waynu usii geli doonaa 2 times 10 oo 3 ah marka labada lambar isku dhufanaysid ay multiplication tahay waxaa jira ruleska halka ma qornaa ruleka marka rulkan oo maxaa tahay waxa weeye waxaad isku dhufanaysaa number 1 lambarada ugu horeeya waa kan iyo kan waa lambarada ugu horeeya ugu la yiraahdo rule number 1 waa front numbers ayaad oran kartaa ama waxaa kaloo la yiraahdaa coefficientka lambarada lambarada la yiraahdo coefficienta ama front numberska ayaad isku dhufanaysaa waa rule number 1 keeda number 2 na lambarada powerka ah ee 10ka ah powerka saaran numberkan 10ka ah powerka saaran ayaad isku daraysaa marka waa exponentska ayaad iyagana arin ku samaynaysaa marka waa isku daraysaaba marka arin isku dar exponentkana marka labada rule simple-ka baad xasuusanaysaa hadday tahay multiplicationka oo scientific notationka marka aynu gudagala marka waxa weeye waa coefficientkii ama nambarada frontku waa maxay waa 3 times waxaan ku dhufanaynaa 2gan waxayna siinaysaa marka 6 waa very simple ta horena waa maxay powerkeedu waa 10 to the 4 times 10 to the 3 waxayna siinaysaa marka 10 to the 4 plus binary 3 waayo waxaan isku daraynaa lambaradan powerkee saaran oo noqonaya 10 to the 7 marka 10kiina halkaas noo soo baxday numberkii frontka ahaa ee ugu horeeyana waxaa inoo soo baxay 6 marka answerkeenu wuxuu noqonayaa 6 times 10 oo 7 saaran halkaa waxaynu ka arkaynaa inay tahay marka answerka inoo soo baxayna uu yahay scientific notation waayo lambarkan mar walba xasuusnow lambarka ka horeeya ugu horeeya ee ka horeeya times 10 to the 7ka waa inuu ka yaraadaa 10 waayo xasuusnow waxa weeye a times waxay noqonaysaa 10 to the power of n ana waxay u dhaxaysaa 1 ilaa iyo 10 marka wuu ka yar yahay coefficientkaasi wuu baasay marka halkaasaynu taana kaga gudbaynaa haddana waxaynu u gelaynaa example labaad oo isla multiplicationka ah waxaanu soo qaadanaynaa 7.89 times 10 to the power 4 aynu marka qoraynaa waxaanu ku dhufanaynaa 4.2 times 10 to the power 3 halkaas saa ka arkaysaan waxa weeye numberka decimalku waa maxay to lambaradan ku jira meesha aad bay uga fara badan yihiin kuwii hore kale ee straight forwardka ahaa marka laakiin systemkii hore baan raacaynaa rulekii hore baan raacaynaa wax isbedelaya ma jiraan waxa weeye waxaan isku dhufanaynaa lambarka eeda ah ama coefficientka ama front numberka ayaan isku dhufanaynaa marka ugu horeysa 7.89 times 4.2 marka intaa dee kole waa isku dhufan kartaan waxa weeye casharkani maha cashar multiplicationa marka resultkuna wuxuu inoo soo baxayaa 33.138 haddana 10kii baawaradii ayaad isku dhufanaysaa 10 to the 4 iyo 10 to the 3 waxaana weeyaan sidaan hore u sheegnay 4kii 3gaad isku daraysaa marka waa 4 plus 3 waa 10 to the 7 haddaba waanu haysanaa kaas oo 10kiya iyo kaas oo ah lambarkii ka horreeyey ee iminka noqonaya coefficientka oo ah 331.138 times 10 to the 7 laakiin iminka tani maaha uma qora lambarkani uma qora si scientific notation ah waayo waxaynu ognahay scientific notationku dee ma noqon karto 33.138 times 10 to the 7 waayo halkan lambarkan ka horeeya decimalka ama dhibicdan ka horeeya waa inuu noqdaa less than 10 inta u dhaxaysa ama numberkan oo dhan baan leeyahay numberkan oo dhan dhibicda maaha sorry
lambarkan oo dhan ee ka horeeya times 10ka waa inuu noqdaa less than 10 waa inuu noqdaa oo kana weynaadaa 1 waayo waxay noo sheegaysaa definitionkii ahaa xasuusnoo mar walba 1 times 10 to the power n eedaasina ay noqoto waa 1 to 10 inta u dhaxaysa marka saynu saa uga dhigno haddaba maxaynu samaynaynaa waa inaynu ka dhignaa 33gaas waa inaynu ka soo jarraa wax ka yar 10 ka dhignaa that means waxa weeye waxaynu u soconaynaa dhibicdan waa inaynu xaggan u soconnaa markaa imise jeer baynu soconaa markaa one move baynu samaynaynaa markaa oo left u samaynaynaa markaynu left u samayno muxuu noqday 3 point halkaas u tagay iminka 3138 times 10 7kii weli waynu wadanaa laakiin maadaamaaynu one left u soconnay haddii decimalku one left uu u socdo decimalka halkan uu one left u socdo waxaynu ognahay intuna xaggee u soconaysaa marka waa left markuu u socdo decimalku ama arrowgani uu left aado intina waxay noqonaysaa waa up waa increase garoobaysaa marka xasuusnow taas intina markaa one bay increase garoobaysaa waa mar walba waxaad xasuusataa maxaynu nidhi waa clockwise waa saasay u soconaysaa marka hadduu kani left u socday arrowgana up u noqonaya marka taasaa sababtaasay u noqonaysaa clockwise haddaynu odhan lahayn ood ku let's say why you confused marka waxaad tidhi left baan u socday okay waxaad gasgarayso tiri malaa n waxay u socotaa down dee ma noqonayso clockwise waxay noqonaysaa counter clockwise laakiin mar walba clockwise ka wey marka maadaamuu up noqday kani upkii plus 1 ayaad ku darsanaysaa plus 1ka markaad ku darsatidna waxay noqonaysaa final answerkeenu 3.3138 times 10 to the 8 intaas u noqonaysaa haddana waxaynu u gudagelaynaa dividingka ah nambaradan scientific notationka iyaga laftigooduna waxay leeyihiin rulekaasoo ah rulkooduna wuxuu noqonayaa lambarada coefficientka inuu aragnay ka bilawnaba example okay example 8 times 10 to the 9 ayaynu odhanaa divide by 2 times 10 to the 3 marka lambarada coefficientka ah ayaad isu qaybinaysaa rule number 1 isu qaybi lambarada coefficientka ah divide them marka iyaga divide garanaysaa rule number 2 na waxa weeye powerka ama exponentka ayaad subtract ku samaynaysaa iyaga laftigoodana marka waa opposite kii hore muxuu ahaa waa iyagaad isku dhufanaysaa when you multiply the coefficient ama front numberka waxa kaliya ku kala duwayn waxa weeye markay multiplicationka tahayna waad isku daraysaa powerka ama exponentka markay divisionka tahayna waad kala jaraysaa that's it haddaba 8 divided by 2 baynu odhanaynaa maxay noqotay waa 4 10 to the power 9 divided by 10 to the power 3 na maxay noqotay waa 10 to the power 9 minus 3 oo ah 10 to the power 6 answerkeena ugu dambeeyay wuxuu qaadanayaa labadaas marka wuxuu noqonayaa 4 times 10 to the 6 halkaasna coefficientkeenaasina waa less than 10 marka wala waxay satisfy garaysay formuladeennii ahayd mar walba xasuusno 10 to the power n ayna u dhaxayso 1 to 10 tana uu integer yahay haddana waxaynu isla eegi doonaa example kale oo ah division kibina ku guda jiraa waa 5.2 times 10 to the 6 divided by 8.4 times 10 to the 2 sidaynu hore u soo sheegnay labadan lambar ee ugu horeeya ayaad isu qaybinaysaa 10ka ka horeeya midkiiba 5.2 iyo 8.4 isu qaybintooduna waxa weeye waa 0.690 10 to the 6 divided by 10 to the 2 waxa weeye waa 10 to the 6 minus 2 waa 10 to the 4 answerka inoo soo baxayna waxa weeyaan markaa 0.6190 times 10 to the 4 laakiin ma aha scientific notation ma aha waayo lambarkan ka horeeya times 10ku maxaanu nidhi waa inuu noqdaa always remember a times 10 to the n eedu ay u dhaxayso 1 to 10 lambarkana waabu ka yaryahayba 1 marka waa less than 1 maadaamuu less than 1 yahay ma aha marka waa inuu qoraa habkaas
habkaasaynu ugu qoraynaa markaa waa inaynu u move garaynaa kan dhibicdan ayaynu one spot to the right aynu u move garaynaa marka wuxuu noqonayaa 6.190 times 10 to the 4 one spot maadaameynu right u move garaynay decimalka intu maxay noqonaysaa intuna waxay noqonaysaa going down one spot why remember again waxa weeye waa clockwise marka waa going down 4 minus 1 marka final answer waa maxay 6.190 times 10 to the 3 marka taasina halkaas ayay ku dhamaatay oo final answerkaagi waa kaas ah maantana intaas ay ku eg tahay videogan ku wada baranay isu qaybinta iyo isku dhufashada scientific notationka taasoo aynu isla baranay in nambarada frontka ama coefficientka loo yaqaano marka la isku dhufto exponentkooda la isku daro marka la isu qaybiyana exponentkooda la kala jaro haddaba haddii videogan innaba uu ku caawiyey fadlan please don't forget ha ilaawin to hit like taabo like-ta subscribe lana wadaag ama share garee with your classmates waa inoo iyo mar kale iyo la baro